kulan wanaagsan daawadayaal Israel miyay duqeymo ka geysan doontaa badda Aasiya saldhigyo ay ku yeelanayso Somaliland markii ugu horeysay ayaa qish laga soo bandhigaya warbaahinta Israel ayaana soo bandhigaysa sheekooyinkii ugu waaweynaa ayaa sidoo kale qayb ka ah aan kugu haya Iraaniyiintu duqeymo ba'an oo isdaba jooga u geystay Israel iyo waliba magaalooyin ka mid ah kuwa Khaliijka Oman Qatar iyo waliba meelo kale oo ku jiro airportkii magaalada Abu Dhabi oo maanta la duqeeyay faahfaahin dheeraad oo laga helayo Trump iyo sheekadiisa update-kii iyo waliba umuro kale oo ku saabsan ayaan soo qaadan doonaa xogtii ugu dambeysay ee caalamka soo dhawaada aanu ku bilownay wararkii ugu waaweynaa ee wadamada Khaliijka haddaan ku hormarno Iran ayaa si ba'an iyo duqeymo isdaba jooga maanta ku qaaday mar kale wadamo dhowr oo ku yaala Khaliijka laakiin yaabku wuxuu ahaa kadib markii ay duqeeyeen wadan ay saaxiib la ahaayeen oo Oman ah طبعا waxaa la arkay magaalada Salaala la yiraahdo duqeymo ayaa lala beegsaday halkaas oo dadku isweydiinayaan sababta ka dambaysa wakaalada wararka ee dalkaasi Oman waxay sheegtay diyaarad aan duuliye lahayn inay ku soo dhacday marka la eego xaruntii kaydka shidaalka ee dekedda magaalada Salaala ee dalka Oman ku taala waxaa la sheegay khasaare badan inuu san jir laakiin qiiq iyo ur ayaa laga arkay taasoo ka dhalan karaysa marka la eego gubasho shidaalkii iyo waliba marka goobihii kaydka ay gubanayaan walow la tilmaamay inuu jiray hal ruux oo waxyeelay ka soo gaartay iyo waliba laba muwaadin oo kale hal qof oo wadankaasi deganaa laakiin ajnabi ahaa hadaba Oman waxay sheegtay si cad inay u cambaareynayso falkaasi dowladda wadankaasi Iran ayaa degdeg waxay xiriir ula sameysay dowladda Oman madaxweynaha dalkaasi Mas'uud Pezeshkian ayaa qadka telefoonka kula xiriiray dowladda Oman waxaana uu yiri waan cambaareynaa falkaasi idinku waxaad tihiin dad walaala waan Oman ogsoonoo dowladda kaliya ay u hambaleysay Khaliijka oo dhanba ay u hambaleysay hogaanka cusub ee ka dhashay dalkaasi Iran ee Majtabi uu hogaaminayo wakaalada wararka waxay sheegeen marka Mas'uud Pezeshkian uu la soo xiriiray isla markaana fariintaas uu soo gaarsiiyay laakiin sheekada halkaas kuma istaageen dowladda Qatar oo kale wasaaradda difaaca waxaa la sheegay in barta rasmiga ah ee X la soo dhigay qoraal ay soo dhigtana lagu sheegay in gantaalo nooca balastiga lala beegsaday dowladda Qatar wararkii ugu dambeeyay waxay sheegeen 24 saac la soo dhaafay ilaa 7 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn in lagu beegsaday afayeen u hadlay dowladda dalkaasi Kuwait gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu sheegay Naasir Busaleeb baliraada wuxuu yiri annagu waxaan ku guuleysanaa ka hortagno waxa qarxa oo markaasi meel ku soo dhacay oo ka dhashay marka haraaga gantaal ama marka diyaarado aan duuliye lahayn oo waxyaabo kale oo la mid ah waan la tacaamulnay ilaa 18 jeer oo booliska la soo xiriiray meel kala duwan waxay ka dhaceen 24 saac la soo dhaafay ayuu isagu tilmaamay waxaana uu sheegay ilaa 347 jeer in booliska la soo xiriiray oo qiladaan la soo weydiistay tan inta dagaaladu ay bilowdeen sidoo kale dalka Imaaraadka Carabta afayeen u hadlay xafiiska warfaafinta ee magaalada Abu Dhabi waxa uu sheegay ciidamada badbaadada dadka iyo kuwa dab-damiskuba inay ku guuleysteen dabka ka dhashay airportka magaalada Abu Dhabi in markaa la xakameeyay halkaas waxa ka dhashay dab xoogan ayaa ka kacay kadib markii halkaas ay ku dhaceen diyaarado aan duuliye lahayn wararka qaarna waxay tilmaamayaan in gantaal uu ahaa laakiin laba diyaaradood aan duuliye lahayn ayaa la sheegay airportka inay ku dhaceen xaruntii kaydka shidaalka markale la gubay markaa طبعا wakaalada wararka ee Reuters waxay sheegtay in aysan jirin wax qasaare laakiin waxa la tilmaamay afar ruux in dhaawacyo uu soo gaaray wararka qaarna waxay leeyihiin dhaawacyadoodu aad bay u fududay markaa hay'adda diyaaradaha ee madaniga ee dalkaasi Bahrain waxay sheegtay dhowr diyaaradood oo markaasi la doonayay maanta inay ka duulaan halka in caqabad ay ku timid markii dambena qaar ka mid ah iyagu ay ku guuleysteen in ay ka baxaan hawada dalkaasi Bahrain oo wararkii ugu dambeeyay marka la eego madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump oo isagu hadlayay waxa uu sheegay inay ku guuleysteen Iran in ay naafeeyaan oo meelo badan oo ay lahayd sida ciidamadii markaa kacaanku kuwa militariga saldhigyo waaweyn marka la eego gantaalada halka laga soo tuuro iyaguna ay beegsadeen oo ay ku guuleysteen markaa sidoo kale wuxuu sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka in ay burburiyeen marka la eego maraakiibtii Iraaniyiintu ay lahaayeen ee miinooyinka badda gelinay iyaguna waa burburinay buu yiri markaa hadda waxa waajib buu yiri markaa Hezbollah inaan u jeesano isla markaana aan burburino laakiin haddana waxa la tilmaamaya iyadoo Iiraantii wili aysan sheekadoodu fara ka qodnayn isla markaana wili sheekadu ay taagan tahay uu hadda leeyahay waxaan rabaa inaan weerar ku qaado dalkaasi Lebanon laakiin sheekada cajiibka waxa waaye warbaahinta BBC-du waxay ka hadashay ilaa 3 markab
oo shidaalka qaada dab uu qabsaday yacni ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaasi Iiraan ayaa gantaalo ku dhuftay wararkii ugu dambeeyayna waxay sheegayaan in maraakiibtaasi qeelaan ay weydiisteen qaarkoodna ay markaasi dab u ka kacayo la maqlay markabka oo doonayay baa leeyahay inuu maro marinbadeedka Hormuz waa inuu fasax ka helaa dalka Iiraan haddii fasax aadan soo weydiisan oo halkaas iska soo martid waa lagu gudbi doonaa oo ma gudbi doontid saas waxaa yiri ilaalada kacaanka ee dalkaasi Iiraan waliba sidoo kale afayeen u hadlay taliska ciidamada Khatamul Anbiya la yiraahdo waxa yiri dhibic shidaala haddii waa dhibic shidaala marinka Hormuz ma mari doono Mareykanka xulufadiisana ma heli doonaan marka laakiin sheekada yaab kale waxa waaye fuustadii ayaa shidaalka sare u sii kacaysa marka 80 halkii la filay hadda 290 bay sii maraysaa 100 way sii dhaafaysaa marka warbixintu waxay ku waramaysaa qiimaha shidaalka kaliya ayaa markaasi xasilkiis waxa laga heli karaa haddii dib loo furo marinka Hormuz Wall Street Journal waxay sidoo kale maanta iyaduna ku warantay in hadda gacanta ay ku hayso marinka Hormuz dowladda waddankaasi Iiraan laakiin sheekada yaab kale waxay tahay aad leeyahay Kepler oo ah marka mid dabagasha maraakiibta shidaalka qaada waxay sheegtay 12 cisho ee dagaalada ay socdeen in dhoofka shidaalka Iiraan 100,000 oo fuusto sare u kacday maalintii ka hor dagaalka waxay sheegeen 2 milyan oo fuusto inay maalintii dhoofin jireen oo marinka markaas Iiraan ay u mari jireen laakiin hadda qiyaastii 2 milyan iyo 100 ayaa 100,000 ayaa la sheegay inay markaasi u marayso macnaha waxay ka dhigan tahay Iiraan iyadoo xirtay maraakiibta kalanaysa oo ogoleen teeda way marayaan sababtoo ah ma garan kartid kuwa iyagu u wada iyo kuwan u wadin markaasi oo Shiinaha ayaa loo socdaa sidaas daraadeed buuq fara badan ayaa ka taagan waxay ku guuleysanayaan kuwa Ruushka iyo kuwa Iiraaniyiintu iyo kuwa Shiinahaba inay maraan laakiin haddana kuwa marka la eego danaha Mareykanka waxa leeyahay khasaare baan bay u geysanayaan mana la marayo bay leeyihiin taban hanjabaadii uu soo saaray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyaduna waxa leeyahay culays kale bay ku sii noqon doontaa markan waxaan aadi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo waliba weeraradii ka dhacay dalkaasi Lebanon saacadihii ugu dambeeyay wasaaradda difaaca dalkaasi Lebanon iyo waliba marka la eego hay'adaha caafimaadka waxay sheegeen waxyaalo inay soo gaartay dowladda waddankaasi Lebanon dadkoodu dabcan dowladdu waxaad ogtiin inay xulufo la tahay Israel iyo waliba Mareykanka waliba waxay aad iyo aad ugu dagaalamaysaa in dagaalyahanada Hezbollah hubka laga qaado waliba xaalku markii wuxuu marayaa meeshii ugu xumayd marka la eego dhibkan labada sano ee soo aadan haday ka gudbaan Hezbollah iyo waliba Iran iyo waliba marka la eego xulafadoodu way sii jiri karaan sanado laakiin labada sano ee soo aadan aad bay ugu khatar badan tahay sababtu waxay tahay dawladda hadda joogta Mareykanka aad bay u taageeraysaa Netanyahu waliba waxa ugu dhow u heli karaan waxay tahay ilaa November inay adkaystaan si doorashooyinka Mareykanka ay u jiheeyaan isla markaana tiimka cusub ee iman doona si kasta hadduu soo wax uga qaban xitaa wax walba la rabay waxa laga yaabaa dagaalka bariga dhexe inuusan ugu yaraan la sii xakameeyo haddii qoliyaha cusub ay yimaadaan wali wax badan markaas sidaamin laakiin marka la eego Trump waxa leeyahay aad baa loogu eedeynayaa xiisadda hadda taagan wararkii ugu dambeeyay sidoo kale waxay sheegayaan dalka Lebanon marka guri in la burburiyay oo diyaaradaha dagaalka Israa'iiliintu ay si baan u duqeeyeen dadka taageera ama markaas ay ka soo jeedaan dagaalyahanada Hezbollah ama ururku ka soo jeedo marka waliba ila wareedda Israa'iil waxay leeyihiin waxaan sii ballaarin doonaa weerarada aan ku beegsanayno dagaalyahanada Hezbollah waxaan rabnaa meelo hor leh inaanu gaarsiino marka faafaynadii ugu dambeeyay ee la helay waxay sidoo kale ku waramayaan in ilaa iyo 8 ruux ay ku geeriyoodeen saacadihii ugu dambeeyay duqeymo ka dhacay deegaanada lagu magacaabo Tibiin iyo waliba kuwa kale oo xadka markaasi ay wadaagaan waa Israa'iil iyo waliba dalkaasi Lebanon geesta kale dagaalyahanada Hezbollah ayaa duqeymo baan u geystay deegaanka Jaliil loo yaqaano iyo waliba dhulka waqooyiga Israa'iil marka aad baana loo beegsaday saacadihii ugu dambeeyay waxay sidoo kale la maqlayay deegaanka Kiryat Shimona iyo waliba magaalada Haifa halkaasina waxa la sheegay gantaalo ay tuureen ururka Hezbollah inay gaareen Iiraaniintu sidoo kale iyaguna way beegsanayaan oo magaalada Tel Aviv xalay ilaa maanta waxa leeyahay weeraradii ugu xooganaaba marka halka lagu qaaday faafaahino la helay waxay tilmaamayaan xitaa Tel Aviv gantaalo dhowr iyagu inay gaareen oo khasaaro dhowr markaasi uu gaaray geesta kale wasiirka difaaca Israel Katz wuxuu tilmaamay inay ku guuleysteen inay naafayaan laakiin haddana wali barnaamijkeeda gantaalaha markaasi wali ilaa hadda waxa leeyahay Iran ma awoodi doonto si fudud inay markaa ku hormariyo sida markaas Israa'iiliintu ay tilmaamayaan laakiin mar walba marka dagaaladu ay jiraan waxa la tilmaamaya in wax badan ay yihiin marin habaabin iska noqonayaan laakiin
dhinac dhexdhexaad in la helo ay muhiim tahay markaa. Geesta kale Israel waxaa leeyahay magaalada Qudus oo kale dhowr qarax ayaa laga maqlayay saacadihii ugu dambeeyay, gantaalo laga soo tuuray Iiraan ayaana hawada ama qiiq iyo uuro ka dhigay meesha dhanba markaa, xaalkuna ma qurux badnayn. wakaaladda Faris waxay sheegaysaa in askari ka tirsan dhanka ammaanka iyo weliba ciidamo kale oo basiij ah iyagu in waxyeelo ay soo gaartay. wararkii ugu dambeeyay waxay leeyihiin ilaa iyo 10 ruux ayaa waxyeelo ay ka soo gaartay ciidamada ammaanka iyo kuwa basiij ah. basiij waxaa la yiraahdaa dagaalyahano waxaa jira dowladdu ay tababartay oo la yiraahdo ciidamada ay caawinayaan dal markuu dagaal galo waxaa la sameeyaa lajnooyin iyo guddiyo isku xiran oo dadka laga soo xulayo, isla markaana dadkaas ayaa la dagaal gelinaya. laakiin waa ciidamada marka ay caawinayaan, waa ciidamo caawiyaal marka basiij baa marka la yiraahdaa ciidamada marka waxay loogu talagalay kuwa marka kaliya dad caadi lagama soo xulin. basiijkan tababar baa la siinayay in ka badan 30 sano baa markaasi la dhisayay oo la tababarayay. iyagu waxay ku shaqo leeyihiin ammaanka gudaha, ciidamada militariga waxay ku shaqo leeyihiin xadka, ciidamada ilaalada kacaankana waxay ku shaqo leeyihiin dalka ciddii soo weerartay inay ka difaacaan. saas baa horta loo kala qaybiyey awoodda dalkaasi Iiraan. marka 10 ka mid ah dadkaas ayaa waxyeelo soo gaartay askarta sida warkii ugu dambeeyay ay sheegayaan. ra'iisul wasaare ku-xigeenka ee dalkaasi Lubnaan waxa uu sheegay in dagaalka la joojiyo, Xisbullah hubka naga ka qaadayna uu tilmaamaya. Xisbullah haddii hubka laga wareejiyo dad bay dagaal kula jiraan, waa lagu soo roqayaa, waa la qabsanayaa. maxaa xala? iyagu xal uma hayaan xukuumadda, waxay rabaan iyagu tan Maxamuud Cabbaas oo kale in meesha ay fariistaan isla markaana kaliya indhaha laga daawado. Israel waxay sameynayso la cambaareeyo, qaramada midoobay cambaareynayso unba kaliya lagu istaago. ma doonayaan iyagu in rasaas lagu rido. weli waxaa la tilmaamayaa aad iyo aad inay isugu fiican yihiin wasiirada hadda jooga oo yihiin dad iyagu ay keensadeen marka la eego Mareykanka iyo weliba Israel xukuumadda hadda joogta marka. waayo xukuumaddii 2006 haddii aad xasuusatid oo Lubnaan aad joogtay waxaa maamuli jiray nin la yiraahdo Amiin Laxuud. ninkaas dagaalada duqeymaha iyagoo socdaan oo dhulka koonfurta dalka Lubnaan u tagi jiray, dadku dhiirigelin jiray, uu aad uga soo horjeedi jiray Israel. dhowr jeer baa waxaa jira ra'iisul wasaare sunni ahaa oo aad Israel markaasi u taageersanayo weliba Mareykanka la dhihi jiray Fuad Sanyura. ninkaas wuxuu aad u taageeri jiray in hubka laga qaado. 2006 baa laga hadlaya. weliba dowladdu iyadoon ka warqabin buu isagu saxiixi jiray oo qaramada midoobay markaa inta uu tagay uu yiri anaga ayaan hirgelinayna ciidamaha kale hala keeno. madaxweynaha ayaa diiday waqtigaas. nasiibka Xisbullah 2006 ay haystay waxay ahayd dagaalkii ay ku jireen, madaxweynaha ayaa la safnaa. hadda mushkiladda hadda jirta waxay tahay madaxweynaha hadda jooga iyaga ayuu ka soo horjeedaa. sidoo kale ra'iisul wasaaraha hadda jooga ma maqli karo wax la yiraahdo Xisbullah hubka wareejiye buu leeyahay. waa nin aad iyo aad weligii isagu gudaha Lubnaan wax badan kama ogeyn, galbeedka buu isaga noolaa oo xijigooyin kala duwan ka qaban jiray. marka isagu badanaa gudaha wax badan kama warqabo waa lagu tilmaamaa. marka xaaladda Xisbullah way ku xuntahay gudaha marka la eego, laakiin iyagu waxay leeyihiin hubkeeni ma dhiibeyno. waan arki doonaa. aad u mahadsantihiin. dhanka markaasi Israel maxay qoraysaa maanta? Israel waxaa leeyahay waa suurtagal iyadoo hadda in goobo istaraatiiji ay ka samaysto fariisimo ah Somaliland. warkan yaa qoraya I24 waa qoraysa, Bloomberg baa qoraysa iyo weliba kuwa kale waaweyn. haddaba qoraalka aad arkaysaan I24 baa lagu qoray. Israel waxay baaraysaa suurtagalnimada iskaashi istaraatiiji oo ay la yeelato Somaliland ayaa la yiri. weliba waxaa la yiri dhanka badda cas saldhig military oo markaasi fariisimo ah ayay ka samaysan kartaa sida ay daabacday Bloomberg. sidoo kale ay xiganayso I24 markaa oo Israel laga leeyahay. wadahadalladan ayaa imanaya baa la yiri Israel inay kula jirto weliba dagaal adag Xisbullah iyo weliba Iiraan. isla markaana waxaa hadda ay raadinaysaa si ay uga hortagto dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta goob ay ka weerarto markaa. saas baa lagu leeyahay. Bloomberg baa markaa qoraysa iyo weliba I24 markaa xiganaya weliba. ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo dowladdiisa ayaa aqoonsatay baa la yiri Somaliland bishii December ee tagtay. waxaa leeyahay taasoo hadda Israel joogitaankeeda diblomaasiyadeed markii ugu horeysay ka dhigaysa mid rasmi ah haddii halkaas ay gaarto. mas'uul Somaliland ayaa leeyahay waa lala hadlay oo weliba xitaa wargeyska walaal wasiirka madaxtooyada Somaliland Khadar Xuseen Cabdi ninka la yiraahdo ayaa markaasi u sheegay baa la yiri iskaashi ku kooban waqti xaadirkan ama ka kooban tallaabooyin badan oo dhinaca amniga inuu jiri karo. marka la eego ayuu yiri wasiirkaasi dhinaca amniga waxaan yeelan doonaa xiriir istaraatiiji ah. taasina waxay ka kooban tahay waxyaabo badan. sidoo kale
wuxuu intaa ku daray arrimo ku saabsan saldhig military weli si rasmi ah loogama hadlin weli kamaan hadal ayuu yidhi haddii laakiin saldhig military uu noqdo ama xitaa wax uun kale mar un baan ka wada hadli doonaa macnaha waxay tahay arrin kale oo markaas iyaduna la eegi doono maalmaha soo aadan aad waan sidii wadayaal channel subscribe saaro si share gare saabidan la wadaaga salaam